Qadir برنامج كان هروسي وغنو وكان هذا نقول يا أستاذ حسن عبد النور وكهذا طبعا حالة قبل حتى جديد شبل الخاص. والإسلام يا كمان بشرفنا قيمها يقايها من بكسر في حفلة ولدي نقول كتير بتبدأ جريدة الوصف رانتو كفر أحسن هاي وحريتها هاي راحت عن حاجة بسوقي قريب أنا وفاضي يا مرة تغييري أبو أنا كفر الوصف هاتي قبل كان سوري رمضان يعني كسيو وكذا يا قبل الصومالي وقيرات كفر معناه إنه حدود كذا ويقولي هي قد فرق الحوار كذا لكن في هناك قبل كان فرصتي سيدتي وكشيء دجاج كا كريم وكشيء كذي تروح عندك كذا الصومالي قبل كان كلية وحكوا الصومالي مثل تاريخ اللي قال لا يوس يتبيني لا تبيني تاريخ وعلى سا إلا يصدق مليون تقريبا كل مليون برا كذي تدخل المدينة وانا dalka Soomaaliya marka laga hadlayo wuxuu ka mid ahaa gobolada ugu soo saarka badan wax soo saarkiisii ma aysan ahayn kaliya inuu gaarsiiyo dalka gudihiisa wuxuu gaarsiin jiray ilaa iyo dawladaha aan saaxiibada ahayd Talyaaniga waxaa ka mid ah shirkadii Somali Fruit aan ugu yeeri jirnay oo ay ahayd Soomaaliya kheyraadkiisa waxay gaarsiin jirtay ilaa iyo Scandinavianka run ahaantii waxaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa inuu ahaa gobol حلبونا تقالها الصومالية لكن السبونا دولة الصومالية مكي بفتي قبل كانوا حسامير جنوب بيشة كانوا أهلي كان صدق كيسنا صوت أصلي فكي تقالها لها دورها لها وحين نقدان السبور تاسيو وبرتيرين أي تجان فبنتي وقدشوا أنتي السيدرة ضد الجول كسر جيد كاتي كريم حكم مامي كرتا waxyaabo badan oo waxay jirto ku burburay waxa burburay qarigii ay lahaayeen waxa kaloo baabaaday noloshii kale oo asaasiga ahayd marka gobolkan dhalinyarada burburjoogtiisii intaan kaliya ma ahan way ka badan yihiin laakiin inta caawakan nasiib u yeelatay inay nagala soo qayb galaan way ku mahadsan yihiin inta kaloo naga maqano waxaan u mahadinayaa insha allahu tacaala inay mar dambe oo kulaga dambe ay yeelan doono inay naga qayb qaataan haddii aan taa kasii gudbo waxaan rabaa in gobolkan dhibaatooyinka haysta inaan mid yar aan mid aan u tagstaago Soomaaliya markii ay federaalka ay qaadatay dowladihii 2000 iyo carta laga soo noqday ilaa iyo hadda waxaad moodaa inuu federaalka si asaasi u socdo oo gobolada qaarkood ay qaateen laakiin wili shabeelladoos gobolkani kama faa'iideysanin maysan helin asaasiga noloshii loo baahnaa waxaa dhacayso taariikhda hadda maanta aan taaganahay hooyo miskiin ah inay maanta ay u dhimato $1 qiimo ahaan aan ku tilmaami karno talaalka shareecada cunugii ay siin lahayd iyo hooyadii ay u dhimanayso teetanadii marka taa waxay la mid tahay inaysan noloshii dadkii deegaanka ahaa aysan ku baraarugsaneyn dowladdii la rabay inay taa ay dhabarka u dhigtana aysan helin fursaddii dadkii ay gaarsiin lahayd marka waxaan u baaqayaa aan baaq dheer iyo cod dheer aan u jeedinayaa dowladda kumeelgaarka ee dowladda Soomaaliya ee federaalka madaxdeena inay u soo jeestaan dadkan dhibaataysan ee la dhibaataysan nolosha inay siiyaan fursad ay ku noolaadaan waana dadkii Soomaaliya dhaqaaleeda abuuri lahaa soo saari lahaa wax soo saarka Soomaaliya taariikhda 2000 iyo labadii ayaan buug Talyaani aan ka aqriyay waxaa Talyaaniga waxay ka hadlayeen Scandinavianka ku 1980 gobolkan leeyahay Lombardia leeyahay Milano ay ku taalo wuxuu ka dhaqaale badnaa saddexdan wadan ee Scandinavianka taa macnaheedu waxay tahay inuu dhaqaalaha soo saarkiisu uu ahaa heer maanta statistics ay ku faanaan Talyaaniga inkastoo dhaqaalaha maanta uu joogo san ahaykii 80kii marka saddexdan maadaama ay u qiimeeyaan inuu ka dhaqaale badnaa waxaan aaminsanahay haddii dowladda Soomaaliya u istaagto gobolka Shabeellada Hoose beeraheedii wax soo saarkeedii inuu dhaqaalaha Soomaaliya 18 gobol uu ka mid yahay 17 soo haray inuu baahideeda dhaqaale u buuxin karo taa markaan ka soo tago gobolka wuxuu u baahan yahay amni
gobolku wuxuu u baahan yahay amni qofka beeraleyda wax soo saarka ah hadduusan haysanin amni way adag tahay inuu wax soo saaro dadkii bulshada waxay isku tashteen sidaa markaa ka soo qaada maryooley ciidamo waxaa ka jiro madani ah oo u istaagaan har iyo habeen inay baahida amniga ay daboolaan ayagoosan dhaqaale iyosan ku haysanin mushaaric ku haysanin daawo ku haysanin rasaas ay ku haysanin marka dadka dowladda ka soo horjeedo oo amniga dowladda wax u dhimaayo waxaa macnaha loogu bixi karaa keliya in la abaabulo dadka deegaanka ah in lagu dhiirigeliyo inay amniga ka shaqeeyaan sida Wallaweyn oo kale waxay ku guuleysteen inay abaabulaan dhalinyaradii inkastoo oo qaab aysan hadda ay ku socoto inay loo abaabulo qaab koonfur galbeed inay hoos tagaan marka gobolkan 8 degme ay ku kooban yahay weli muu istaagin inay dowladda ay u agar baxdo marka dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in taasi aan maadaama wada joogtii aan nahay inaysan dowladdii shacabkii ay xuquuqdoodii inay u istaagaan inay u soo celiyaan taasina ma aan bedelkeedii inaysan macnaha ay ahayn waadin Soomaali waadinka Soomaali wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ku noolaado caafimaad inuu noolaado waxbarasho asaasi caruurtiisu u helo hooyada inay heshay dhalaanka caafimaadkoodii marka taa inkastoo aysan waddanka aan ku noolnahay qurbahan Norway aysan ahayn la mid noqonayna kuwa Afrika laakiin haddana waxaa jirto hay'ado u shaqeeyo oo gargaarka in lagula xisaabtamo laftirkoodii inay gaarsiiyaan meelaha ay bulshada baahida ka jirto marka ku dheeraan maayo isbaarooyinka dhibaatooyinka kale arrinta hadda afwey ka taagan waxay saameyn ku yeelanaysaa bulsho ilaa iyo 50 kun oo bulsho ayaa caawa ka maqan guryahoodii oo meelay u hoydaan aysan aqoonin marka jaahiliyadii haddii aysan ay halkaan boqojooga halkaan Norway kaliya ma ahay meelo badan ayay ku nool yihiin marka waa in loo istaagaa oo arrinkaa laga dhiibiyaa loona saacidaa sidii ay noloshooda iyo nololeedkooda dib ugu soo ceshan lahaayeen ku dheeraan maayo arrinkan insha Allah taala kulamo badan oo aan insha Allah isla qaadan doono waa idin salaamaya